qaar ka mid ah culimada magaalada Gaarisa ayaa cod dheer ku muujiyay baahida loo qabo in la helo goob cusub oo lagu aaso dadka maadaama qabuurihii hore ee ku yaalay gudaha magaalada ay gebi ahaanba buuxsameen. Culimadu waxay sheegeen in xaaladani ay abuurtay dhibaato weyn oo saameyn ku yeelanaysa bulshada si looga hortago ayay yiraahdeen xaaladda ka sii dari karta. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. walaalayaal maanta oo khamiis ah taariikhda milaadigana waxaan filayaa waxa weeyaan taariikh 2 bishii 10aad 2025 tan islaamkana 1447 bishii afraad taariikh 9 walaalayaal marka waxaan u imaanay inta muslimiina meesha isku imaatay arrimaha ku saabsan qubuuraha muslimiinta lagu aasi lahaa oo buuxsameen qubuurta weynada aad garanaysaan bula sagaar ay ku taal iqrahay way buuxsantay maadaama ay buuxsantay muslimiinta meel loo hayo ma laha marka culimadan dadkan waa odayaashii guddiga masaajidka iyo a'imadii ilaa 25 masjid ay isugu imaadeen meeshan iyo odayaal kaleba taasoo looga tashanayo qubuurta muslimiinta si qubuur loogu gadi lahaa marka walaalaha muslimiinta dhammaan meel ay joogaanba shacabka dhammaan dawladda madaxda waxaan codsanaynaa siyaasiyiinta dhammaan muslimiinta meel lagu xabaali ma laha sheekadu wuxuu sheegay gabar u dambeysay wada la xabaalay inay wada lagu xabaalay marka meel walaal la isku xabaala la leeyahay waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan u saaciyno qubuura muslimiinta dhammaan reer Gaaris isku xabaalaan oo aad u weyn insha Allah ta'ala magaaladana ka baxsan inaan raadino dhanka iyo Abdullaahi ka koran aan u raadino hadii Ilaahay noo saqra subhanahu wa ta'ala aan helno marka arrinta waxaan rabnaa nin kasta oo muslim ah oo arrinta ma aragtay danaynayo in uu dhagan uglaado qubuuraha la maartay waxaan rabnaa kuwa buula sagaar ay kuwa ka weyn aad uga weyn oo aad uga weyn maartay oo maartay ilaa 100 sano la isku xabaalo inaan raadino insha Allah ta'ala waayo anagu dhalmeed baan hay goran dhimanayna lama garanayo marka waxaan maartay muslimiinta dhammaan u sheegaynaa in oo nin kasta ama dal ha joogo ama dibadda ha jiro arrinta iyada qarashaadka iyo la soo sheego lacagaha qubuuraha loogu gadaayo dad sahan ba hadda dirayna dhulkii maartay soo qiimeynaya insha Allah ta'ala markii aan dhulka aan soo qiimeyno inay maartay nin kastaba meeshu joogaba hadduu qof muxsin oo asaga gadaayo hadii la helayo ama maartay asxaab uu garanayo arrinta in loo dhagan uglaado nin siyaasi oo khayr badan oo asagana maartay wanaagsan dad wanaagsan ba dadka ku jiraayo oo arrimaha aan gacan ciilaynin hadii la helo oo ayagana maartay qayb li wax ka qaataan waxaan codsanaynaa marka codka markuu idin soo gaaro muslimiinta meel ay joogtaanba annaga guri annaga aan leen uma saciinayno meel annaga aan leen maartay uma saciinayno waxaan u saacinaynaa muslimiinta meeshii lagu xabaal lahaa marka nin kasta inuu daneeyo adiga meeshii lagu xabaal lahaa muslimiinta meeshii lagu xabaal lahaa inaad maartay ka fikirto oo arrinta aad maartay nagu waafaqto oo nagu ayido waxaan samayn doonaa insha Allah ta'ala baybil baan samayn doonaa meel kasta oo masaajid baan mari doonaa meel kasta oo maartay siyaasi oo dhan baa loo tagi doonaa nin kasta oo maartay loo imaado arrinta u dhagan uglaado oo qubuuraha muslimiinta lagu xabaalayo uu daneeyo oo aad u daneeyo walaalayaal meel isku xabaala leeyahay magaalada plankeeda maartay waxa weeyaan lagu ma darin يعني waxay leedahay meelaha maartay qubuuraha had waad aragtay dawladda meelo badan bay leedahay meesha kawanjada dawladda JSS istaalka weyn ilaa iyo maxaan ku iraadaa maartay Al-Faaruq oo maartay meesha maxaan ku iraadaa iskuulkan college ka meeshiisa Teachers College ilaa Al-Faaruq intaas oo dhan way siman yihiin waa dhul maartay waxbarasho ah laakiin dhulkii looma danaynin maxaan ku iraadaa maartay muslimiinta isku xabaal lahaayeen looma danaynin marka insha Allah arrintaas aan raadin rabnaa u saciir rabnaa inta akhyaar iyo culimo isku soo bixisay arrinta marka in loo dhagan uglaadaan idin ka codsanaynaa culimada kale akhyaarta kalena uga baxaya wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aniga waxa la yiraahdaa Sheekh Haajir Abdi Jeelle oo qaybtan waa bariga waliba xagga maartay dawladda maartay u xil saaran xagga maartay qaadiga naayib qaadi ah oo imaamka ee masaajid ku yaala maartay qaybtan buulahodan marka insha Allah ta'ala magaciga kaas way intaasaan ka tagaa markuu daray insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxaan maanta meesha iskugu nimid hotelkan saxafi annagoo ka kooban 25 masaajid dan guud oo dadka oo dhan Gaaris dan u ah waxa weeye qabriyadii la isku aasi jiray magaalada Gaaris way buuxsameen dadkii wax lagu aasiyo male qabrina laga maarmo Ilaahay waa kii yiri kullu nafsin daaqatul maut wixii noolba way dhimanayaan dadkii xaggaasi u guureen xaggaas loo badan yahay qabriyadan hadda buuxsamay waxa ilaa 10 sano ama 12 sano lagu sii jeeday
dadkan magaalada joogay reer Gaaris ee muxsiniinta aan baa gatay marka waxaan isu xil saaray oo isu soo bixinay inaan muslimiinta u raadino meesha isku aasi lahaayeen waa dan guud waa dan caama dad kasta way u baahan tahay haddii intuu qof magaaladan ka dhinto maanta la waayo meel lagu aaso ila dhulka dhul banaan ma dhulka waa la wada haystaa waa dhib in geedaha korkooda la isku aasi maahay dhulkii baa loo baahan yahay in loo saxiyaa loo baahan yahay in loo socdaa loo baahan yahay in lacag lagu bixiyaa loogu baahan yahay waana sadaqata jaariya qofkii xabaal gada oo xabaal dadka muslimiinta u gada xabaalaha inta la isticmaalayo ee qofkii la geliyay intii ku aasan yahayba ajir wuu soconaya waxaan ka rabnaa dadka muslimiinta ah reer Gaaris si caama dadka muslimiinta meel joogaanba arinta in laga qayb qaato dadka Gaaris khaasatan waxaan ka codsanaynaa arinta qabriga waa arin muhiim ah oo loo wada baahan yahay in nin walba u diyaar garoobo masaajidadaan maraynaa ganacsigaan maraynaa iyo suuqyasha madaxdaan u tagaynaa siyaasiyiintaan la hadlaynaa cid walba waa loo baahan yahay waan u tagaynaa waxaan rabnaa dadkaas muslimiinta ah inay u diyaar garoobaan qabrigaas sidii loo martii xil iska saar lahaa waxaan kala codsanaynaa dadka muxsiniinta ee aan reer Gaaris ahayn ee muslimiinta meel joogaanba ee Soomaaliya codka naga fahmaya daliya dibadba inay ka soo qayb qaataan lambar baan sameyn doonaa baybil baan waxaynaynaa halkaas baan rabnaa qof walba inuu nagala soo xiriiro oo wixii uu heli karo sadaqaysanayo ee ilaa daraad u baxsanayo inuu ku soo bixiyo waan mahadsantihiin ana magacayga waxa la yiraahdaa Abshir Xirsi dhammaan dadka meesha iskugu yimid 25 masaajid ka kooban waxay idin leeyihiin u diyaar garooba sidaynu xabaal u gadan lahayn wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh